kusoo dhawaada Kacab Media haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar like share comment waad mahadsan tahay daawade soo dhawaada asxaabta saacadihii ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada qabsaday wiil u dhashay dalka Mareykanka oo xukun 24 sano lagu xukumay hadaba waa kuma wiilka ay hadalhayaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo guud ahaanba gabdhaha caalamka Cameron waa 22 sano jir waxa uu dhashay dalka Mareykanka 2018 waxa uu gaari uu ku jirsiiyay magaalada ku taala dalka Mareykanka haweeney iyo gabar aad u daciireed Cameron xilligaasi waxa uu jiray under age oo lama xukumi karin laakiin haatan maxkamadda ayaa go'aamisay inay ku xukuntay 24 sano oo xabsi ah gabdhaha caalamka iyo kuwa Soomaalida ay ku jiraanba ayaa si weyn kaga xumaaday xabsiga fog ee lagu xukumay Master Cameron iyadoo baraha bulshada saacadii la soo dhaafay la soo dhigayay sawiradiisa iyagoo sheegayay in aan xilligan u qalmin in wiilkan 24 sano lagu xukumo sababta ugu weyn waxay ku sheegayeen in wiilku aad u qurux badan yahay taasna uusan u qalmin inuu xabsi uu ka soo baxo isagoo 4 sano jira wiilkan ay gabdhaha Soomaaliyeed intooda badan waxa ay ku hadalhayeen jacayl la soo dhaafay iyo gabdhaha caalamkaba baraha bulshada ay isticmaasho iyagoo muujinayay ereyo dareen leh oo ah in Janiska la siiyo iyadoona uu sawiradiisa si weyn looga faaqidayay baraha bulshada ay ku kulanto haddaba daawade wiilkan u dhashay dalka Mareykanka bal adiga sabab kula tahay ma waxay kula tahay in xabsiga laga soo daayo mise waxay kula tahay in 24 sano uu sii xirnaado waxaanu soo baxayaa da'ahan isagoo jira 45 sano hadda waa 22 sano jir hadii 24 sano loo geeyana waxa uu soo baxayaa isagoo 45 sano jira dadkuna waxay leeyihiin ninkan waa nin mustaqbal leh muu qalmo xilligaas in xabsiga uu lagu sii daayo isla markaana xabsiga uu ku sii jiro aad bay baraha bulshada saacadihii ugu dambeeyay looga hadalhayay arintan